asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idiin salaamaya saaxiibayaal halkan waa channelka xogta dalka kusoo dhawaada qodobada aan idiin soo gudbinaya waxaa ka mid noqonaya Soomaaliya tirada dadka kasoo caafimaadey caabuqa COVID-19 iminkan waxaa lagu soo warmayaa inay sii kordhayso maamulka Somaliland oo sheegtay in tirada dadka laga helay caabuqa COVID-19 ay sii korortay golaha wasiirada maamulka Galmudug oo kulankii ugu horeeyay yeeshay madaxweynaha maamulka Somaliland oo cafis u fidiyay maxaabiis fara badan madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Guuleed oo dowladda farmaajo ku eedeeyay inay ku fashilantay wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya Axmed Madoobe oo ka qayb galay shir ay soo qaban qaabisay qaramada Midoobe waxaan markale saaxiibayaal ismaqal wanaagsan taariikhda waxa ay ku beegan tahay 19 bisha May sanadii 2020 intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka xulan iminkana ku soo dhawaada saaxiibayaal warkii oo faahfaahsan waayahay saaxiibayaal bal haddii aynu ku bilaabno wasaaradda caafimaadka iyo weliba daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee COVID-19 waxay ku xaqiijisay in 24 saac ee ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 ay ka bogsadeen 11 ruux bukaanada jirkooda laga waayay fayruuska caabuqa COVID-19 ayaa tirada guud ee dadka bogsaday waxay ka dhigaysaa 163 oo markaasi ka dhigan in xanuunka ay ka reesteen in ka badan boqolkiiba 11 dadkii uu haleelay caabuqa safmarka ah COVID-19 wasiirka caafimaadka ayaa sidoo kale cadeysay in la diiwaangeliyay 34 xaaladood oo kala jooga maamulka Somaliland 18 maamulka gobolka Banaadir 14 ruux weliba dowlad goboleedka maamulka Hirshabelle oo 2 ruux ah xaaladaha cusub 21 ka mid ah waxaa lagu soo warmayaa inay rag yihiin halka 13 kalena ay yihiin haween 1455 xaaladood ee COVID-19 ayaa guud ahaan dalka lagu soo warmayaa in laga diiwaangeliyay caabuqa COVID-19 hal ruux ayaa u geeriyooday COVID-19 waxaana tirada guud ee geeriyootay noqonaysa 57 ruux wasiirka caafimaadka Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa ku baaqday in midnimada uga qayb qaato xakameynta faafitaanka fayruska corona si guul ay uga dhamaadaan qorshayaasha dowladda ay ka doonayso in cudurka COVID-19 looga hortago waayahay saaxiibayaal markan haddii aynu eegno maamulka Puntland waxaa lagu soo warmayaa in laga diiwaangeliyay caabuqa COVID-19 tiro markaasi cusub wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka maamulka Puntland ayaa waxay shaacisay natiijada dad loogu shakisanaa cudurka COVID-19 balse laga baaray kuwaasi wasaaradda sheegtay in qaarkood laga helay caabuqa safmarka COVID-19 qoraal ka soo baxay guddiga wacyigelinta weliba xakameynta cudurka COVID-19 u qaabilsan maamulka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in la baaray 51 qof balse cudurka laga helay 12 ruux oo kala 11 rag weliba hal dumar ah guddiga ayaa waxay sheegeen in dadka laga helay cudurka COVID-19 ay kala joogaan gobolada Nugaal Mudug iyo weliba Bari sidoo kale cudurka ay ka bogsadeen ilaa 2 ruux ugu dambeyntii guddiga wacyigelinta caabuqa COVID-19 ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in tirada guud ee xaaladaha COVID-19 maamulka Puntland laga diiwaangeliyay ay noqonaysa 148 halka 5 qofna ay u geeriyoodeen caabuqa halista badan COVID-19 sidoo kale deegaanada maamulka Puntland waxaa lagu soo warmayaa in dad qaba caabuqa COVID-19 karantiil ay ku jiraan kuwaasi oo qaarkood markaasi laga baaray caabuqa safmarka ee COVID-19 wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland waxaa markaasi ay sheegeen in markaasi qaar ka mid ah laga helay caabuqa safmarka ee COVID-19 qaar kalena laga waayay horey maamulka Puntland waxa ay u sheegtay in dadka qaba caabuqa COVID-19 inta badan loo ogoleen in ay dadka soo dhaxgalaan kuwaasi wasaaradda caafimaadka inta badan ay ku boorinayaan in guryahooda ay iska joogaan maadaama ay qabaan caabuqa safmarka ee COVID-19 bal haddii aynu eegno golaha wasiirada maamulka Galmudug waxaa lagu soo warmayaa in kulankii ugu horeeyay markaasi ay yeesheen shirka ugu horeeyay golaha wasiirada maamulka Galmudug oo shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo weelinayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa waxaa markaasi uu ka qabsoomay xarunta madaxtooyada magaalada Dhuusamareeb kulankii ugu horeeyay golaha wasiirada ay yeesheen weeyaane ajendaha shirka golaha wasiirada waxaa markaasi uu ku saabsanaa kow isbarasho guud weliba xil
la wareegidda wasaaradaha. 2 xogta wasaaradaha iyo weliba qorshaha howleedka 100 maalmood ee soo aadan. 3 warbixinta xaaladaha ammaanka ee hadda taagan. 4 dib u habeynta guddiga Covid-19. 5 qabanqaabada maalinta ciidda. Golaha wasiirada maamulka Galmudug waxaa xilligan horyaala shaqooyin dhowr ah oo adeeg maadaama maamulka Galmudug ay soo martay in ka badan 2 sano oo khilaaf ah. Hooyahay saaxiibayaal, markaan haddii aynu eegno wararka maamulka Somaliland ku saabsan, madaxweynaha maamulka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi amar ka soo baxay ayaa waxaa la sii daayay qaar badan oo markaasi la sheegay inay maxaabiis ay ahaayeen. Wareegtada caafiska loogu fidiyay ayaa waxay u qornay sida tan: markaan arkay dastuurka maamulka Somaliland, markaan arkay xeerka ciqaabta guud, markaan tixgeliyay warbixinta taliska guud ee ciidanka asluubta, markaan arkay soo jeedinta xafiiska xeer-ilaalinta guud ee qaranka, markaan la tashaday hay-adaha quseeya, waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta in aan markaasi caafis u fidiyay xuska maalinta 18 May darteeda maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan. Markaasi lagu soo sheegay tiradooda ay gaarayso 365 maxaabiis ah, waxaana madaxweynaha maamulka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in maxaabiistaasi ay galeen dambiyo yaryar ah. Maamulka Somaliland waxa ay markaasi maalintii shalay u dabaaldegaysay maalinta ay maamulka Somaliland go'aansatay inay ka go'do dowladda Soomaaliya, waxaana maamulka Somaliland ay sheegtay in ay markaasi Soomaaliya ay ka dooneyso inay siiso madax bannaanideedii maadaama dowladda Soomaaliya iyo weliba maamulka Somaliland ay inta badan isku haystaan dhanka madax bannaanida. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale sheegay in wada hadalka labada dhinac ay tahay in laga wada heshiiyo arrimo badan oo ku saabsan in maamulka Somaliland markaasi loo tixgeliyo in la siiyo madax bannaanideeda. Waxa uu soo jeediyay in haddii dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba Somaliland ay wada hadalka ay ku yeeshan waayaan in la tago maxkamadda caalamiga si markaasi loo kala saaro. 30 sano waanu wada joognay, 30 kalena waynu kala maqneen. Marka waxaa iga dhaadhici la inimada yaryar ee xamar jooga ee oranaya inta ay telefishinada soo istaagaan Hargeysa ayaan mashruuc markaasi ka fulinaynaa. Taas waa qalad, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Somaliland. Hadalkan waxa uu jeediyay isagoo oo markaasi khudbad ka jeedinaya munaasabad heer sare ah loo agaasimay oo markaas shalay ka dhacday qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland. Waayahay saaxiibayaal, haddii aynu eegno bal Cabdikariin Guuleed, hogaamiyihii hore maamulka Galmudug, waxa uu farmaajo uu ku eedeeyay in uu ku fashilmay wada hadallada Somaliland iyo weliba Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ku bogaadiyay ammaanka ay haystaan Somaliland oo maanta markaasi la sheegay in ay 29 sano jirsatay. Qoraal dheer ah oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in uu ka mid ahaa dadkii hormuudka ka ahaa wada hadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba Somaliland, ha yeeshee dowladda farmaajo ay ku fashilantay inay markaasi wada hadal la yeeshaan Soomaaliya. Haddaba hadallo kooban ayuu soo qoray. Waxaa ka mid ah dhammaan shacabka reer Somaliland iyo weliba maamulkooda waxay mudan yihiin in aan ku bogaadino guulaha ay ka gaareen nabadda, horumarka, dib u heshiisiinta, hanaanka doorashooyinka, wadajirka bulshada, weliba hirgelinta nidaamka asxaabta oo markaasi madaxweyne farmaajo ku eedeeyay inay ku fashilmeen wada hadallada Soomaaliya iyo weliba Somaliland. waayahay saaxiibayaal, ugu dambeyntii haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka qayb galay shir ay soo abaabushay qaramada midoobay oo laga hadlay qodobo kala duwan oo ka mid yihiin geedi socodka dalka iyo weliba caqabadaha taagan. Kulankan oo ka dhacay hab maqal iyo muuqaal toos ah ayaa waxaa ka qayb galay danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswam, ergeyga midowga Yurub ee Soomaaliya iyo weliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wadamada UK, Norway, Sweden, Germany. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa faafidda xanuunka Covid-19 oo kiisas kala duwan laga helay maamulka Jubbaland, qaar ka mid ahna ay u dhinteen. Waxaana kale
oo looga hadlay kulanka arrimaha ammaanka weliba doorashooyinka heer federaalka iyo weliba xeer dowladood. Guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen channelka xogta dalka waan iginta anigoo Cabdirashiid Ibraahim Cali ayaa idin socodsiinaya saaxiibayaal warkiisa xigan wali kulanti.